aan qabsoomi lahayn magacayga waa Maariya Xuseen ahna ganacsatada Soomaaliyeed ee gobolka Sanaag ee ku ganacsata habka online-ka runtii kulankan markaan arkay social media ka arkay runtii kulankan aad baan ugu farxay si gaar ah waayo waxay model u tahay hablo fara badan oo raba maankooda ku jira maskaxdooda ay ku jiraan fikir fara badan oo ceergaabo guul u ah haday maanta soo saaraan runtii qofku hal meel buu ka dhaqaaqaa halka meel uu ka dhaqaaqana waxa weeye maskaxdiisa maskaxdaadu haday ku jirto fikir positive runtii wax kasta waad qabsan kartaa adana dadka ugu sareeya adiga kaliya is-aamin qorshe samayso gool samayso horena u soco wax kasta oo maankaaga ku jirana soo saar una bandhig dadkaaga waxa boqolkiiba boqol aan hubaa haddii waxa maskaxdaada ku jira aad soo saarto maanta inay bulsho fara badan oo iska fadhiya inay soo kici doonaan anigu muddo kooban baan ku jiraa suuqa loo yaqaano MLM-ka ama online-ka company-gan u shaqeeyo waxa la yiraahdo Almost Global wuxuu jiray 15 sano runtiina waxyaabahan iibiyo waxa kamid ah qaybta healthiga oo ay ku jirto goojadaas aad aragtaan waa healthy goojadaasi xanuun fara badan bay daawo u tahay sida macaanta dhiigkarka gaaska lafa xanuunka runtiina waxay kor u soo qaadaysaa goojada yar aad aragtaan waxa la yiraahdo Fountain of Life waxa laga sameeyay geedka halka iniga muuqda waxa la yiraahdaa Norwegian Spruce geedkaasi wuxuu caawimo gaar u yahay difaaceena runtii haddii difaaceena uu wanaagsan yahay waxay ka dhigan tahay in xanuunada qaar ayna soo weerari karin wixii marka laga yimaado qadarta Ilaahay gabadha ugu horeysay ceergaabo keentay company-gan baan marka laga yimaado gobolada kale Hargeysa ee gabdho kala joogaan hadalka ku dheeraaday waxa rabay kelmad kaliya waxaan u soo kacay kaliya inaan walaashii